xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa qormo uu soo qoray waxa uu kaga hadlay hadal uu jeediyey gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Soomaaliya Mahad Cabdalle Cawad oo uu kaga hadlay arrimo ku saabsan isbitaal dowladda Imaaraadka Carabtu ay maamuli jirtay oo ku yaala magaalada Muqdisho isla markaana muddo 2 sano xiran oo uu sheegay gudoomiye Mahad Cabdalle Cawad in loo baahan yahay xilligan qalab caafimaad oo ku dhex jira isbitaalkaasi oo waxa weeye neef mareenka gala meeshan aanu joogno maanta oo arkaysaan waa cusbitaalkii Sheekh Said la dhihi jiray boorkaas ku dhagan gudihiisana waxa ku yaala agab iyo qalab lagu daaweyn karayo 50 qof oo qaba yacni xanuunkan oo dhibta badan leh waxa yaala haamihii baa yaala waxa yaala oxygenkii concentratorka ahaa waxa yaala yacni wax walba oo cusbitaal u baahnaa waana xiran yahay 2 sano ayuu xiran yahay waxa weeye ummadda oo Soomaaliyeed ayaana loogu talagalay in loogu adeego waxaan ka weynay safaaradda Imaaraadka ahayd jawaab waafiya waa ka weynay haddaan la xiriirnay usbuuc ka hor baan la xiriirnay xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliyeed waxa mas'uul ka saaran yahay badqabka shacabka Soomaaliyeed cusbitaalkan ma xirnaan karo ummadda Soomaaliyeed baa loogu talagalay in loogu adeego waxa weeye waxa meesha yaalla waa deeq oo ummadda Soomaaliyeed loogu deeqay waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha uu ugu weyn yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda caafimaadka dhammaan laanta fulinta waxaan ka codsanaynaa in ay jawaab rasmi ah shacabka Soomaaliyeed ee aanu matalo ay ka siiyaan waxa cusbitaalkan uu xiran yahay Imaaraadku haddaysan awoodin cusbitaalkan inay ka shaqaysiiyaan waxa dhex yaalana ummad Soomaaliyeed baa iska leh dhulkiisana Soomaali baa iska leh mana lagana waxa weeye ma la haysan karayo waxaan qabnaa oo aanu soo jeedinaynaa cusbitaalkaas in si degdeg ah lagu furo haddaysan Imaaraadku furayninna dawladda Soomaaliyeed wasaaradda caafimaadku inay meeshaas ka hawlgashaan doonayaan xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa qormadiisa waxa uu ku yiri qayla dhaanta gudoomiye Mahad Cawad kuma matalo golayaasha qaranka ee malaha qadar ayaa ka dhaxadashay xalay waxaan dhageystay ayuu yiri xildhibaan Mahad Maxamed Salaad shir jaraa'id oo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalle Cawad uu ku horqabtay isbitaalka Sheekh Zayid ee ku yaala magaalada Muqdisho oo ay maamuli jirtay dowladda Imaaraadka kana howlgali jireen dhaqaatiir u dhashay dalkaas oo muddo 2 sano u xiran khilaafka ka dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta gudoomiye Mahad hadaladiisa waxa ka mid ahaa ayuu yiri xildhibaan Mahad Maxamed Salaad isbitaalkan qalab caafimaad ayaa dhex yaala waana loo diiday ma xirnaan karo mana la haysan karo sidaas darteed waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in ay furaan isbitaalkan xoogaa dhaar iyo boolo xoofta ahna waa uu ku daray hadalkiisa ayuu yiri xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo qormo ka qoray hadal ka soo baxay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa su'aalo ku saabsan hadalkiisa weydiiyey gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalle Cawad su'aalaha waxaa ka mid ahaa ma waxaad rabtaa inaad dadka Soomaaliyeed iyo caalamka u rumayso warkii ahaa baarlamaanku wuxuu noqday qayb ka mid ah hay'adaha fulinta maxaa isku soo beegay qayla dhaantaada iyo diyaaraddii Imaaraadka ee qalabka caafimaad maalmo ka hor keentay magaalooyinka Muqdisho Hargeysa iyo Garowe mise qadar ayaa qoonsatay oo noo qayli ku tiri markaan su'aalahaas iyo su'aalo kale ayuu qormadiisa ku weydiiyey xildhibaan Mahad gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalle Cawad